waxaan salaamahayaa waftigan wanaagsan oo nagala soo qayb galay maantay waxqabadka aan ka wadno deegaanka Caliwaal annaga iyo maamulka deegaanka Caliwaal iyo gudoomiyaha degmada Bitaale iyo waftiga sharafta leh oo ka yimid gobolka Galkaayo waxaan ku salaamahayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh salaamka bacdi waxaan joognaa maantay deegaanka Caliwaal waxaa ka jirta waxyaalo oo maaragtay dadka jooga ay biyo la'aan oo baahan baa ka jirta waxaa ka jirta ay sheeg hay'adu inaysan ka qayb gelin oo ayaantan aysan imaan sidaas daraadeed maantay waxaan u furnay jeebkan ayaan u furnay intaan cid kale wax ka sugi lahayn waxaan kale ku soo dhaweynaynaa hay'adaha deeq-bixiyaasha ah oo ka howlgala gobolka Mudug waan ku soo dhaweynaynaa waxqabadkeeda inay wax ka qabtaan waxaan ku soo dhaweynaynaa jaaliyadaha waxaan ku soo dhaweynaynaa maamulka gobolka ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan kale ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta waxa ka jirta baahida ka jirta waxa ugu weyn maanta emergency ah waa biyo dhaamis ayaa hadda ka bilownay maanta oo ahad ayaan bilownay weeyadii u horeysay ayaan shubnay wixii kale wax qabadana waa nagu xigtaa emergency biyahana ugu weyn waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax nagala qabata gudoomiye ka yahay Maxidiin Shacabdi Aadan iyo maamulkiisa aad baan u salaamayaa sidoo kale waftiga qiimaha badan la ka yimid Galkaayo iyo dadka degan deegaanka Caliwaal dhamaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacda salaam anagoo iskugu jirno odayaal dhaqan iyo maamul waxaan ka soo qayb galnay maamulka Caliwaal iyo deegaanka dadka degan taasoo ay jidho baahi fara badan oo ka jira deegaanka ay madax u tahay dadka deganna meeshaan la tabaalaysan yahay biyo la'aan oo aysan jirin wax ka kaabo biyaha haddana maanta waxaan ka bilownay biyo dhaamis aan rabno dadkan degan meesha deegaanka intii laga helayo hay'ada ama maamul inaan ku sii dhowrno waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka dhammaantiis in ay ka soo gaaraan dadkan abaaraysan iyo baadba iyo hay'adaha dhammaantood iyo jaaliyadaha iyo wax allaale waxa ay qusayso dadka degan meeshaan waa dad la dala dhacayo abaar ilaahay waana ka bixin kara subxaanahu wa ta'ala laakiin wuxuu u baahan yahay gacan qabad iyo in loo gudmado koobaadna wuxuu u dhimanayaa waxa ka mid ah biyo maanta sida aad u jeedaan hadda waxaan u shubnay baydo waxaan doonaynaa sidoo kale waxaan isku xilqaabnay inaan u shubno intoo kale iyo intii aan awoodno taasoo aan ka ayuuteenay jeebkeenna iyo dadkii samafalayaasha ahaa walaalayaal waa u jeedin rafood ku yaal baa la yiri xilliga macnaha lagu jiro waa garan kartiin waxa lagu jira xilli kala dambeed ah dadku iyo dunyaduba maartay ay biyaha aysan ka maarmin marka haddaysan ka maarmin waxa la rabaa dadka meeshaan deegaanka haday tahay u maqan oo dhashay ama jaaliyadaha jireen ama meel kale ha jireen dawladaha hadii ay kuuran yahay midda federaalka midda galmudug maamulka Galkaayood waxaan ka codsanaynaa meeshaas bilaan baa ka jirta marka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in macnaha hadii ay kuuran yahay maadaama ayaguna ay isku xilqaameen inay wax bilowdaan in hadii ay kuuran yahay ay maartay waxay qaban karaan ay qabsadaan in lagu garbatabiyo hadii ilaahay idmaayo la adeego wax lala qabto hadii ilaahay kuuran yahay ayaan anaguna codsanaynaa anagoo odayaashii deegaanka ah oo kana yimid gobolkana waxaan insha Allah aan ka awoodno waxaan rajaynayaa in hadii ilaahay idmo aan dib isku laabano boqolkiiba boqol waxaan ka awoodno anaguna aan dadaalno cid aan gaarsiin karno kale aan sii gaarsiino qofkii kulay maanta meeshaas wax kula baxaa waxay la tahay waa iska qiyaasi kartiin qof walba meeshaas wax kula baxa waa meel maanta meesha leeyahay wax kula baxa weeye dad iyo dunyaba way ooman yihiin meel ay ceel ka gaaraan ma joogaan hadda waxayna sugayaan kulay waa maamulka hadii ay kuuran yahay iyo degmada ay macnaha hadii ay kuuran yahay meeshaan gobolkan hadii ay kuuran yahay bay fiirsanayaan waxaan codsanaynaa hadii ay kuuran yahay cod dheer iyo cod gaaban ku sheegaynaa dadkaas inay u baahan yihiin gurmadkaas oo ay ugu diran tahay xilligan biyuhu ay ugu diran yihiin Galkaayo iyo Caliwaal dadka deegaanka u ah baanahay waxa maanta na keenana waxa weeye waa dhibaatada maanta jirta oo dadka deegaanka maanta haysa weeye cabashadeedana inaan soo gudbino oo inta la dhageysanaysa iyo inta
ilaahay xaggiis baa horta caawintu bay jirtaa laakiin dadka bilow aadanka oo dadka caawin kara inaan gaarsiino iyo hay'adaha iyo dawladda hadda jirta inaan gaarsiino ayaan meesha u nimid meesha waxa ka jira dib tiro badan oo baahi ah baahidaasna hadda waxa ka hadlay gudoomiyaha Bitaale midka Caliwaal ayaa ka hadlay waa sida ay meesha uga hadleen weeye annaguna odayaasha dhaqankaan nahay waxaan rabnaa cid kasta oo na maqlaysta meel kasta ay joogaan maanta dhibka halka ka jira inay dadka halka deegaanka ah ka caawiyaan inay biyaha ka caawiyaan inay haddii ilaahay ku idmay wixii kale oo haddii ilaahay ku idmay ay ka caawin karaan ay ka caawiyaan salaam bacdigeed waxaan u sheegaynaa adduunka haday hay tahay haday maayir tahay haday dawladda galmudug tahay waxaan u sheegaynaa in deegaanka Caliwaal uu maanta dhib ka jiro oo dhibkaas ay ugu badan tahay biyo la'aan waxa weeye deeqda ilaahay baa deeqa bixiya laakiin dhibaato oon shidaal baa ka jirta waxaan doonaynaa in waxna la kala qabto oo waxa weeye maanta waqti xun oo adag baa lagu jiraaye in waxna la kala qabto oo biyahaas emergency-ga intay ugu culays badan yihiin ay waxna la kala qabtaan doonaynaa waxaan u sheegaynaa intii namaqli ka dhaw warkayow gaaro in meeshaas dhib ka jiro hadda waxa weeye maanta beed baa la shubay wax kalena waa lagu camal jiraa laakiin oo gudoomiyaasha iyo maaragtay odayaasha iyo dhaqanka ay shubeen laakiin in kalena waa lagu camal jiraa balse ummad fara badan baa joogta ilaahay baa arrinta iska leh waxaan isugu nimid jidaalka ka jira Caliwaal oo badko dhahayo laakiin ceeshi ka fogaatay meeshaan binaadamka dhan jidaalku waa hayaa laakiin meeshaan ceesha ka fog wali waa aroori waayeen waa meel degaan oo la degan yahay dadku waa soo tabaryareeyay awalna nurku waa ku yaraa haatan nurku waa dib dhacay waxaan rabnaa in adduunka hay'adaha maamulka maayarka dawladda jaariyadaha cidka gudoomiyaha gobolka cid kasta warka gaarsiin karno waa gaarsiinaynaa in waxna la kala qabto oo biyaha degdeg in loo siiyo cuntada lagu daro meeshii la xoog karo la xogo intaasan warka u soo gudbinaynaa annaguna wixii aan ka qaban karno waa ka qabanay hadda biyaan shubnay wala waa ku camal jirnaa waxay ka qaban karaanna male oo waxa weeye dadku tayadiisa badan binaadamna dadka gacantiisa waa iska reemii iyadoo gacanta binaadamku iska yar tahay laakiin dadku waa dad mii iyo magaalo la kale laakiin adduunka meel kasto la jiro codsigaas aan u gudbinayno meeshan waxa isugu timid maantay dad ay kululeysay baahida iyo oonka ka jirta degmada Caliwaal waxyaalaha ka jira maanta waxa ugu badan biyo la'aan dadku aad bay biyo la'aanta uga cabanayaan ayadoo xoolo ay jilcaan meel biyo ugu sugaysaana ay u jirto 35 kilomitir biyo ugu sugayso biyaheeduna aad u dhibtamayaan xooluhuna ay sagaarin dadka deegaankuna ay tabartooda ay isku filnayn cid kasta oo ka qayb qaadan karta cid kasta u gargaari karta inay u gargaarto saakana biyaha ay bilaabay gudoomiyaha Caliwaal gudoomiyaha Bitaale uu ku xigsan doono annagoo dhaqankiina aan ku xigsan doono insha Allah qof kasta oo ka qayb qaadan kara oo maanta u gargaari kara dadka muslimiinta oo wax ku sadaqaysan kara inuu ku sadaqaysto jaariyadaha caalamiga waxaan leenahay sidii wadanka ay u gargaari jireen Ilaahay ba gargaar leh u gargaar maan dadkaas aad bay u dhibaataysan